Camdy Boker. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة waxay dhahaysaa ninkii reer u dhaanshay dadku dhowrayeen oorkii dhexda uga lumay. Nin dhan ummad oon la baabays u dhaamiyay ee biyuhu iska daayay isagayba oorkii dhexda uga lumay. Ninka waxa la mid ah ninka dhan dal dhan loo doortay Soomaaliya la yiraahdo ee burbur iyo rafaad ka soo kabanaya ee sumcad darro fara badan adduunka u taalo haday tahay ergixiso iyo qarax iyo dil iyo pirates iyo waxa soo dhan adduunka u yaalaan ee la rabay inuu wixii ka halaabana u wanaajiyo wixii hore u wanaagsanaana ee aanu ka halaynin ee nasiib darro iska daa inuu wax u wanaajiyo wixii u wanaagsanaa ka halaynaya waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ninkii la rabay in uu wixii shalay u wanaagsanaa ee ah 4 sanaba ee doorasho in la qabto oo hogaamin la doorto waa ninka u xidxiidanaya inuu muddo kororsi aan sharci ahayn samaysto isagoo ku marmarsiyoonay sheekh baraale la yiraahdo waxaan dhisayaa waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo wixii ka horeeyay aan waxba laga qabanin waa ninka la rabay maamul goboleedyada inuu isku hayo doorasho waqtigeeda dhacdana uu ka hirgeliyo ee nasiib darraba siiyay maamul goboleedyada qaarkood hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood sanad muddo kororsi aan sharci ahayn maantana rabay inuu siiyo sanad kale oo muddo kororsi oo sharci ahayn ninka la rabay sharci inuu ilaaliyo isaga sharci ku tumanaya ninka la rabay wixii ummadda u wanaagsan ee shalay ee haysatay inuu u ilaaliyo isaga hadda ka halaynay iska daa inuu wax ka halaysana u sameeyo dabcan sanad kale oo muddo kororsi uu siin lahaa haddaan Axmed Madoobe ka diiday lahayn oo dabcan isagana aan sharci ilaalinaynin raba inuu isbaqro ka daro dib dhala madaxweyne xasan sheekh waa su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysay yani ma waxa kaliya uu soo jeestay in uu ka shaqeeyo isaga iyo inta ku heeraarsanba in ay kaliya jawaab ka buuxsadaan yani shalay waxa qaati billaah la tagnaa boobka hantida dadweynaha dhulalkii dowladda oo la leeyahay dad baa ma aragtay ganacsatada lacago malaayiin laga qaatay oo marasi meel aadan aan garanayna laga eriyaya ka bacdan kuwaas lagu wareejinaya qabuuraha la yaabana la qodayo oo sumcad darro يعني umad la wada yaabta xasbunallahu wa ni'mal wakiil laakiin qofku sidiisba hadaan sariiganaynin oo waxyaalaha qaarkood aanan ka xishoonaynin wuxuu keenayaa sida hadda dhacday oo kale wax la yiraahdo canshuurta meydadka oo dadka canshuurta meydadka aad weydiinaysaan Soomaha dadka markay baasaboor qaadanayaan la diiwaan geliyo oo dadka markay maxay yiraahdaa warqad sugnaan laga qaado oo waxaan ku leeyahay maartay hay'ad dhan oo hay'adda diiwaangelinta shacabka loo sameeyo ummadda loo sameeyo maxay tahay dadka meedadka canshuurta ka qaadaysan waxaasoo waxa lagu raadinayaa lacag jawaab gaar ah ku dhacda waati xildhibaanada baarlamaanka dhexdeeda ka lahayn ayadoo la duubayo canshuurtii ummadda ee qaranku lahaa jawaab dad gaar ah ku dhacda qaarkood Nairobi lagu qaada xildhibaanada baarlamaanka fadhiya ayaa qaarkood qaata sheeko waxay samaysteen xasan sheekh iyo raggan ku heeraarsan la yiraahdo qof walba meelaha loo xiro bajaajleeda lacag la dul saaro wax alla wixii bajaajleeda laga qaado dad ha loo xiro qof ama koox la isku dubriday ayaa meel loo xiraya jaadka dalka yimaada canshuurta laga qaado dad gaar ah loo xiro hay dhulalka ummadda xasbunallahu wa ni'mal wakiil ninka saa sameynaya ummad Soomaaliyeed oo qurbaha ku tabaalaysan oo qaarkood yani caruurtooda meel la aadaan la ayaa waxay leeyihiin dalkeena marbu nabad noqon doona dal ay dalku noqon doona asigoo nabad ah oo degan oo sharci kala dambeyn oo ka jirto oo aan ilmaheena u baqayn ayaa ku noqon doona waa inta yar hadda ilmahooda wali aysan 12 sano soo gaarin baxay inta kale qaarkood gaangiisa ka noqdeen markaas wax dileen xabsiya lagu guuray xabsi daa'ina loo wada diray qaarna waa la dilay oo dhulkeeda ka hoos maray laakiin waxa sidoo kale jirta ummad fara badan oo dalka gudihiisa ku nool oo ayagana qarax iyo dil iyo hanjabaad iyo canshuur laba dhinac looga qaado iyo waxaan ku leeyahay shaqo la'aan iyo gaajo wax kasta qaraabo kiil iyo waxay noqdeen qabyaalad inay ku helaan dawladoodii maxaa taqaanaa wax ku helimaayeen yaa taqaanaa iyo yaa u dhalatay ayaa hortaala boqol jara waxaan iri xasan sheekh iyo kooxdiisa damjadiid dib looma doorteene waxaa ka hormaray oo na soo maray kuwa ayaga ka daran oo dadka guryaha ugu dhacay oo waxaan ku leeyahay rag far badan ciidamada dawladda kamid ah
laayay oo kabaha ku duugay oo gabdhihii nisa u shaqaynayay yani lagu dhex waayay nisada dhexdeedii haddaanan qofka noocaas oo kalea farmaajiya kooxdiisa haddaanay xasan sheekh oo hore loogu yaqaano musuq maasuqa ka hormari lahayn waxaan idhaha xasan sheekh dib looma doorteen laakiin in la doortaba ma ahayn waxay ahayd qof cusub in la tijaabiyo ilaan inaad qof aad shalay ku taqaanay waxaasoo dhan dib u doorato adoo rajo ka qaba in wax un isbedelaan waa doqonnimo haye soomaalida hore waxay u dhahday nabar aad filanaysa naxdin male dadkan horaa loogu yaqaanay boobka iyo dhaca iyo inay 24/7 ka shaqeeyaan maxaan jaab ku ritaa oo kaliya haye dabcan dee qof markiis hore musuq maasuq ku soo baxay oo laaluushu xildhibaano siiyo cod ku helay musuq maasuq inuusan la dagaalamaynin waa la iska ogaa laakiin waxaa dadka ay caan ku ahaayeen boobka hantida dadweynaha aba daranayd ay muddo kororsi yani waali ah oo laga bilaabay muddo kororsiga la siiyo maamul goboleedyada ayagaa la raba inuu ku ilaaliyo sharci iyo nidaam iyo inay doorashada qabtaan xilliga loogu talagalay nasiib daro ayagiyuuba ka bilaabo inuu siiyo muddo kororsi sharci dara intee marka halkan laga aadaya marka waxaa waaye muddo kororsi lagu raadinayo qof iyo cod oo bambaana extension maaragtay waali ah oo xitaa maamul goboleedyadii iyo hogaamiyadooda la siinayo hantida guuda la boobayo canshuur aan ummadda waxba loogu qabanaynin oo xoog yani iyo sandulla ah ummadda looga qaadayo maamul goboleedyadii oo lasii kala fogeynayo hadda puntland gaar u taagan tahay jubbaland maaragtay waddada ku socoto hadday ay ku dhawaaqdana dabcan koonfur galbeed ay kusii darsoomayso waxa keliya oo uu xasan sheekh waxay ka shaqeynayaan waa jeebkooda qoysaskooda iyo qaraabadooda keliya حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الدنيا آخرنا ولا سويديني أمام الله سبحانه وتعالى لكن حسن شقو والوخل ده وحرجين إن مركل الوخل ده من دون إن شاء الله تعالى